السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يلا كسور دوادا برنامجكين عيارها فالله هدي جنالكاد ku cusub tahay subscribe gamleelkana riix qodobada xisaab badan ee barnaamijkan idinku ku hayana waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Manchester United ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa mar kale u qalab qaadanaysa sidii ay ula soo wareegi lahaayeen laacibka u dhashay wadankaasi Norway ee Haaland ciidankan waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya kooxda Borussia Dortmund ee horyaalka wadankaasi Germany ayaa si weyn u soo jiidanaya tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer saasadarteeda waxa ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United diyaarinaysa balqaabka ciidankaasi ugu soo biiri lahaa stadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United xidigan ayaa bandhig wacan ka sameynaya horyaalka Bundesliga wadankaasi Germany tan iyo sanadkan bilowgiisa uu ku biiray kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund wuxuu qulubtooda degay taageerayaasha faraha badan ee kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund soo kale laacibkani Haaland waxa uu soo jiidanayaa ku dhawaad 17 kooxood ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub oo koox walba ku tilmaamaysa mucjisada kubadda cagta waqtiga kan xaadirka daayarkan ee u dhashay wadankaasi Norway ee Haaland ayaa aad marka ugu firfircoon dhinaca gool dhalinta asagoo marka ciidankan lagu tilmaamayo inuu yahay xidig inta badan nasiibkiisa uu aad ku caabiyo in uu goolal aad u fara badan dhaliyo tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa marka doonaya inay kooxda kubadda cagta Manchester United mar kale isku day xoogan bay sameeyso maadaama wakiilka ciyaaryahankaasi Mino Raiola uu u sheegay in fursad wacan ay haysatay kooxda kubadda cagta Manchester United ka hor inta aanan Haaland u dhaqaaqin kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund waayo shuruudo qaar oo ay kooxda kubadda cagta Manchester United la hordhigay dalabka ciyaaryahankaasi ay ka soo jawaab waayeen ka hor inta uusan Haaland ku biirin kooxda Borussia Dortmund tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole ayaana hadda doonaya fursad kale inay Manchester United wali ay u banaan tahay ayadoo ay xooga ay saari doonaan dalabka ciyaaryahankaasi Haaland waxaana guud ahaanba kooxda kubadda cagta Manchester United ay ka quusanaysaa damci faraha badnaa ay ku aadana xidiga Sancho isla markaa u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund hadda waxa uu tobar Ole uu doonayaaba dalabka ku aadan xidiga ay hore ugu guul dareysteen ee Haaland maamulka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee horyaalka wadankaasi France ayaa doonaya inay u hoosgalaan wiilka reer Brazil ee Neymar Jr si uu saaxiibkiisii Lionel Messi uu ka dhaadhiciyo inuu u soo dhaqaaqo magaalada Paris ee caasimadda wadankaasi Faransiiska isbeddelada qaar ay damacsan yihiin maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa ah inay doonayaan oo kaliya ciidankaasi Lionel Messi xil ciyaareedkan markuu dhamaado haduu diyaar u yahay inuu ka soo dhaqaaqo stadiyaha Nou Camp ee kooxda Barcelona hadaba kooxda kubadda cagta PSG ayaa toddobaadkan gudihiisa xusisay inay waqtiga kan xaadirka ay tahay meesha ugu dhow ay ku heli karaan saxiixa ciidankaasi Lionel Messi saaxiibkiisii reer Brazil ee Neymar Jr taasi oo hore ciidanka uu u shaaciyay in uu diyaar u yahay in kooxdiisa Paris Saint-Germain uu koob aad u fara badan uu kula sii guuleysan doono asagoo meesha ka saaray hadalhayntii ku aadan inuu dib ugu laaban doono kooxda Barcelona marba hadiiba mustaqbalka saaxiibkiisa Leo uu qalqal xoogan ka jiro stadiga kooxda kubadda cagta Barcelona PSG muhiimad gaar ah u aragtaa hadii ay suurtagal noqoto oo wiilkan u dhashay wadankaasi Argentine Lionel Messi uu ogolaado inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain waxay kooxdu PSG ay diyaar u tahay in ay lumiyaan xidiga reer France ee Kylian Mbappé oo markaa doonaya lacaga aad u fara badan mushaar ahaan inuu ku xiro maamulka kooxda kubadda cagta PSG waxana PSG ogolaan doontaaba inay u gacan geliso midkood sida Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid oo mudaba aad u baadi goobaya laacibkan reer France ee Kylian Mbappé laakiin marka hore waxay doonaysaa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain bal inay arintaasi oo war muhiim ah ka keeno xidiga ay saaxiibada yihiin ee Neymar Jr waxaana ay rajeynaysaa kooxda kubadda cagta PSG wax walba oo dhaca inay Leo ay ka hor istaagto inuu markaa u dhaqaaqo garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta Manchester City ay ku ciyaarto maadaama City ay ku guul dareysatay damci ay ku doonayso ciidankaasi waxaana hadda la xusayaa in xiriir aad u wanaagsan xidiga Lionel Messi ay leeyihiin laacibka reer Brazil Neymar Jr ciidanka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee Paulo Dybala ayaa iska fogeynaya wararka eedeymaha ku aadan in xiriir uu la leeyahay xubno kamid ah maamulka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ninka kan u dhashay wadankaasi Argentina Paulo Dybala ayaa markaa lagu tirinayaa inuu kamid yahay ciyaartoyda waqtiga kan xaadirka ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus sidoo kale uu taabacsan yahay tobaraha kooxda kubadda cagta Juventus ee Andrea Pirlo laacibkan ka tirsan kooxda Juventus ee Paulo Dybala ayaa markaa yiri ma jirto
jirto inaan xiriir la leeyahay kooxda kubadda cagta Manchester United waa warar been abuura waxaan aaminsanahay oo kaliya inaan wili ahay ciyaaryahan aad ugu qanacsan mustaqbalka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus haddii aan go'aansanayo inaan ka dhaqaaqo kooxda Bianconeri Juventus maalin cad ayaan markaa ku dhawaaqaya kooxda aan doonayo oo sida gaarka u daneynayo inaan markaa u dhaqaaqo xil ciyaareedkii soo ilaaday ayaa laacibkani Paulo Dybala waxaa dalabyo muhiim ah ka soo gaaray kooxda kubadda cagta Barcelona balse kooxda kubadda cagta Manchester United ee horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa damac xoogan kaga jira maxaa yeelay waxay doonayaanba inay lumiyaan xidigooda reer France ee Paul Pogba ayadoo wararka qaar ba ay xusayaan in ciyaaraanka muhiimadiisu ay tahay guud ahaanba inuu ka faaruqo Stadio Old Trafford sidaas darteeda waxay Manchester United u arkaysaa muhiimad gaar ahaaneed xidigaasi Paulo Dybala inuu yahay xidiga kaliya ee buuxin kara booskaasi haddii suurtagal ay noqoto Pogba inuu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Manchester United tobraha kooxda kubadda cagta Liverpool macallin Jurgen Klopp ayaa amaan kala dulacaya ciyaankiisa reer Brazil ee Fabinho laacibkan uu isbedel xoogan ka muujiyay qaybta qadka dhexe ciyaankan reer Brazil ee Fabinho ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool wuxuu u yahay muhiimad gaar ah waxaana hadda la xusaya tobraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool macallin Jurgen Klopp in ciyaankaasi uu adeegsan doono booska daafaca sidaas darteeda xidigan ayuu ku tilmaamay inuu yahay laacib joker ah oo boos walba ka ciyaari kara ciyaarankani Fabinho ayaa si weyn u soo jiitay maamulka kooxda kubadda cagta Liverpool waxaana mar walba uu ka soo dhex muuqday staadiyaha Anfield ee kooxda Liverpool wuxuu muujiyaa awoodiisa sidaas darteeda ciyaarankani ayaana markaa buuxin doona baahi walba ay qabto kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaana kooxda kubadda cagta Liverpool leeyahay hadda isbedel xoogan ayay markaa wada oo la doonayo in laga dhaadhiciyo ciyaarankani reer Brazil ee Fabinho heshiis waqti dheer ah taa oo la doonayo inuu kula sii joogo staadiyaha Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool sida wararka qaarkood ba markaa ay xusayaan dhinaca kale kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Spurs ayaa markaa aad u ceelsanaya dalabka ku aadan ciyaaraanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta AC Milan ee Francesi sida ay daawacday jilada Calcio Mercato kooxda kubadda cagta AC Milan ayaana markaas si weyn u soo jiidatay isbedelada iyo bandhiga uu sameeyo ciyaaraankaasi laakiin laacibkani 23 jirka reer Afrika ee Francesi ayaana markaa Milan doonaysa in ka 40 milyan oo lacagta Euro-ga inuu san kaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta AC Milan xil ciyaareedkani laacibkani Francesi ayaa garoonka San Siro heshiis haysta tan iyo sanadka 2022 waxaana hadda la xusayaa kooxahani kubadda cagta ee Arsenal iyo Tottenham Hotspur ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska inay aad markaa u doonayaan dalabka ciyaaraankaasi kooxdii kaliya ee ogolaatay inay bixiso dulcageed gaaraya 45 milyan oo lacagta Euro-ga ee dollarhan u dhiganta 50 milyan in loo gacan gelin doono ciyaaraankaasi Francesi sanadka cusub wakiilka ciyaaraanka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Paul Pogba ee Mino Raiola ayaa markaa ku dhawaaqay in ciyaaraanka reer France ee Pogba ay macquul tahay inuu dib ugu laaban doono staadiga kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus warar muddadan ba soo jiitamaya ku aadaneed ba mustaqbalka ciyaaraanka reer France ee Paul Pogba inuu markaa u dhaqaaqi karo magaalada Madrid ee caasimada wadanka Isbaanishka gaar ahaan kooxda aadka markaa u xiiseynaysa Real Madrid iyo inuu dib ugu laaban karo Turin wareysi uu bixiyay wakiilka xidig ka tirsan kooxda Manchester United ee Paul Pogba Mino Raiola ayaa markaa cadeeyay in fursad weyn ba ay u tahay ciyaaraanka waqtiga kan xaadirka ciyaareedkan wixii ka dambeeya ba inuu ka dhaqaaqi doono staadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United waxaana muhiimada gaar ahaaneed ba uu xusay wakiilkaasi in ciyaaraanka uu dib ugu soo laaban doono kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus maadaama maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Juventus toddobaadkii ugu dambeeyay ay ku dhawaaqeen inay rajeynayaan inay soo gabagabeeyaan qorshaha ciyaaraankaasi reer France ee Paul Pogba ayaa aad ugu dhibaatoonaya mustaqbalka staadiyaha Old Trafford ee kooxda Manchester United asagoona markaa la xusaya waqtiga kan xaadirka Pogba inuu lumiyay fursadiisii booska joogtada ee kooxda kubadda cagta Manchester United sidaas darteedna aysan isku wanaagsaneen tobraha kooxda Manchester United macallin Ole Gunnar Solskjaer waxaana Mino Raiola uu xusayaaba in ciyaaraanka reer France ee Pogba waqtiga kan xaadirka uu xiriir bal la sameeyo madaxda sare kooxda kubadda cagta Juventus siba tobraha kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus waxaan rajeynayaa xil ciyaareedkan marka uu soo ilaado in Pogba uu dib ugu soo laaban doono horyaalka sareeda wadankaasi Talyaaniga tobraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallin Jose Mourinho ayaana markaa xusaya fikir ahaan inuu aad u dooni lahaa in ay kooxda kubadda cagta Spurs ay ku soo guulaysato dalabka xidiga kooxda Juventus ee Paulo Dybala sheekadan ayaa waxay soo baxday kadib markii 27 jirkan la xusay waqtiga kan caadirka in loo gacnaatinayo horyaalka wadankaasi Ingiriiska laakiin tobraha kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur macallin Jose Mourinho oo markaa qiyaasaya awood ahaanta ciyaaraankaasi reer Argentine Paulo Dybala in wax weyn uu ku soo kordhin karo isbedelada kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur xaqiiqdii waan jeclaan lahaa laakiin uma maleynayo inay suurtagal karto wax walbaba
maamulka sare kooxda kubadda cagta ee Isbriska ayaana maalmihii ugu dambeeyay hadal hayay arrimaha ku aadan dalabka xidigaasi Paulo Dybala oo sidoo kale kooxaha aad u fara badan ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub ay aad markaa u baadi goobayaan waxa maalin ka hor baa laacibkaasi Paulo Dybala ku dhawaaqday in aad u xiiseynayso kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka liigaanka wadankaasi Faransiiska macna Jose fikrahan wuxuu leeyahay haddii suurtagal ay noqoto in Tottenham ay ku soo guulaysato saxiixiisa ciiraankaasi wuxuu noqon doonaa xidig halboolo muhiim u noqda mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Isbriska 27 jirkan iyo kooxda kubadda cagta Juventus hore u cadeysay in ka yar 80 milyan oo lacagta euro-ga ee dollarna u dhiganta 97 milyan aan lagu iibin doonin ciiraankaasi ee Paulo Dybala hadda waxay kooxda kubadda cagta Isbriska ay ka mid tahay shanta kooxood ee aadka markaa u baaday goobaya dalabka ciiraankaasi Paulo Dybala tobraha kooxda kubadda cagta Everton Mr. Carlo Ancelotti ayaa wili ka warqaba xiisaha Juventus ay ku doonayso ciiraankoodii hore Moussa Kean laacibkani hadda amaahda kula jooga kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa si weyn ula qabsaday kooxdiisa Paris Saint-Germain laacibkaasi Moussa Kean intuu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Everton waxa ka haystay jahwareer iyo la qabsi la'aan horyaalka wadankaasi Ingiriiska laakiin hadda waxa muuqanaysa kooxdan ka dhisan magaalada Paris ee PSG inuu si weyn ula qabsaday oo marka uu ka mid noqdo ciyaartooyda marka lagu xisaabtamayo xil ciyaareedkani jirada Calcio Mercato ee dalkaasi Talyaaniga ayaana marka xusaysa inay waqtigan xaadirka kooxda kubadda cagta Piagnani Juventus ay dib u soo celisay wada hadaladii ay ku doonayeen in ciiraankaasi Moussa Kean dib ugu celiyaan stadia kooxda kubadda cagta ee Piagnani Juventus laacibkan u dhashay wadankaasi Talyaaniga ayaana kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ku ama laakiin sidaas darteeda tababaraha kooxda kubadda cagta Everton Mr. Carlo Ancelotti ayaana markaa xusaya xil ciyaareedkani marka uu dhamaado ciiraankaasi Moussa Kean inuu dib ugu soo laaban doono stadiyaha Gothenburg waana rajada ugu weyn ee kooxda kubadda cagta Everton ay leedahay in ciiraankaasi mar kale ay dib ugu soo celiyeen stadiyaha waxana halkaasi lagu baabi'in doona qorshihii ku aadana in xil ciyaareedkani la iska iibin doono ciiraankaasi Moussa Kean hadda amaahda kula jooga kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain kooxda kubadda cagta Inter Milano ayaa markaa ku faraxsan waqtiga kala xaadirka inay heshiis shakhsiyadba ay la gaareen ciiraankooda De Vrij waxana wakiilka ciiraankaasi uu markaa xusaya in laacibkaasi uu si weyn u soo jiitay maamulka kooxda kubadda cagta Inter Milan laacibkan u dhashay wadankaasi Holland ayaa difaacida ugu muhiimsan ee waqtiga kan xaadirka ee si weyn kaga dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Inter Milano heshiiska ama wada hadallada xilligan ee soconaya ayaan markaa noqon doona in ciiraankaasi halkii xil ciyaareedba garoonka San Siro markaa uu ka qaato dulcageed gaaraya 5 milyan wakiilka laacibkaasi ayaana markaa sheegay in maamulka sare kooxda kubadda cagta Inter Milan marka hore ay ku guuleysteen in heshiis shakhsiyad ba ay la gaaraan ciiraankaasi De Vrij waxana ay ku tilmaamayaan Steven De Vrij in uu yahay xidig si weyn u soo jiitay heshiiska ama wada hadallada waqtiga kan xaadirka ayaana markaa la doonayay in la gaarsiiyo tan iyo sanadka 2025 laacibkan 28 jirka ayaa beeca xurta kaga yimid kooxda kubadda cagta Lazio bishii July sanadii 2018 waxana uu ilaa iyo haatan ciiraankaasi oo kooxda kubadda cagta Inter Milan uu u saftay 95 kulan waxana sidoo kale ciiraankani uu ka caabiyay 6 gool 6 kalena waxa uu ka caawiyaa ugu wanaagsan sidaas darteeda ciiraankani ayaana markaa soo jiisho xooggan u ah mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Inter Milan waxana ay maamulka Inter ba ay rajeynayaan inay arinta ciiraankaasi ba waqti dhowba ay soo gabagabeen doonaan